kulanto wacan oo wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibnay janaalkeena xanta wararka maalin wanaagsan meel kasta dunida aad ka joogtaan jimco wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxaa kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay walaac xoogan ay ka muujisay madaxda maamul goboleedyada ee shir ku qabsanaya magaalada Nairobi kaas oo hadda qabanqaabaysa ka socota magaalada Nairobi maxay ka tiri dowladda Soomaaliya maxay tahay sababta ugu weyn xilligan dowladda Soomaaliya walaaca ugu badan u muujinayso warbixino gaar ah barnaamijka ayaad ku daawan doontaan natiijo hordhac ayaa laga soo saaray baarista la xiriirta dilkii taliyay booliiska gobolka Hiiraan iyo waliba shaqaqadii ugu dambeysay ka dhacday Hiiraan maxay ilaa hadda muujinaysaa natiijada hordhaca ah ee la soo saaray warbixino gaar ah ku saabsan arrimaha Hiiraan iyo xaaladda Hiiraan oo aan eegi doono qodobada kale aad daawan doontaan warka ku jiran waxaa kamid ah maxaa ka soo kordhay arrimaha la xiriira koonfur galbeed iyo maamulkaas si adag kaga hadlay dadkii lagu laayay ee dhuusamareeb ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed waxa lagu dilay koonfur galbeed muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed waxa lagu dilay dalkaasi koonfur Afrika u diyaargarooba qodobadaasi kuba kale inaad ku daawan doontaan wararkeena oo qayb ay ka yihiin odayaasha beesha ogaadeen oo ku hanjabay in ay jirdil u geysan doonaan xildhibaanada kale ee baarlamaanka Kenya ku jira qodobadaas aad ku maqli doontaan wararkeena ugu waaweynaa daawadayaal waxaa gudagalina warbixinada aad maqasheen ayagoo faahfaahsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujisay shir la qorsheynayo madaxda maamul goboleedyada inay ku yeeshaan magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya toddobaadkan ayaa aad loo hadalay shirka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelanayeen magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya kaas oo la filayay inuu shalay oo furmo balse dib u dhac soo wajahay kadib markii madaxda qaarkood ay culeysay soo wajaheen wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre oo ku sugan degmada Baardheer ee gobolka Gado ayaa sheegay in ay madaxda Soomaalida ku shireen magaalada Nairobi ay aad kaga xun yihiin ayna tahay mid aan qurux badan sida uu sheegay asagoo la hadlayay dadka ku sugan degmada Baardheer ayuu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka xuntaysan ku qanacsaneen in madaxda maamul goboleedyada ay ku jiraan magaalada Nairobi laakiin waxa uu sheegay inay ka jeclaan lahayn inay ku shiraan gudaha Soomaaliya si loo muujiyo ayuu yiri in dowladda Soomaaliya aysan ku qanacsaneen khilaafka iyo waliba arrimaha labada dal u dhaxeeya hore ay maamul goboleedyada waliba xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda ka soo horjeeda ay shirar gaar ah kaga qabsan jireen magaalada Nairobi shirarkaas oo aad muddo in dowladda Soomaaliya laga soo horjeedo tani markii uu bilowday khilaafka xiriirka la leh muranka xuduudda dhanka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ee aad kaga gaabsan jirtay jawaabaha iyo waliba talaabooyinka loo arkayo in cadaadis ay ku yihiin xukuumadda Soomaaliya xiisada labada dal u dhaxeysa ayaa si xoogaysatay markii dowladda Soomaaliya London ay ku qabatay shir ku saabsan arrimaha shidaalka Soomaaliya wuxuuna sii xoogaysay mar kale kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen sharciga kheyraadka iyo shidaalka dalka balse dadka ka faalooda arrimaha diblomaasiyadda ayaa aaminsan in Kenya ay ku fudaatay go'aanada ay qaadanayso marka loo eego xiriirka taariikhiga ah ee labada dal u dhaxeeya muranka Kenya iyo Soomaaliya ee xadka badda ayaa wuxuu soo jiitamay ku dhawaad 10 sano wuxuuna ku saleysan yahay sida loo cabiro xadka badweynta Hindiya ee labada dhinac Soomaaliya waxay doonaysaa in cabirka xadka ee badda taas oo si toos ah loo dhiriyo xadka dhulka ay doonayso halka Kenya ay doonayso in dhankeeda loo aadiyo si u hesho wareeg dhan 100 kilomitir oo isku weer ah oo dhulka hadda kheyraadka hodanka ku ah in Kenya ay marsato oo waxyaabaha labada dal ay isku khilaafeen taas oo keentay in wali muranka uu soo jiitamo qodobada kale ee wararkeena ku jiraan waxaa saaxiibayaal kamid ah natiijo hordhac ah ayaa laga soo saaray baarista laga sameeyay iyo waliba sababtii loo dilay taliyay qaybta booliiska gobolka Hiiraan guddi loo xil saaray baarista dilka taliyay qaybta booliiska gobolka Hiiraan ayaa soo saaray natiijo hordhac kadib markii baaritaan qaabka loo dilay taliye Maxamed Bacu ay sameeyeen guddiga ayaa sheegay in baaritaan meel wanaagsan uu marayo isla markaana dad loo soo xirxiray falkii dilka ah ee ka dhacay magaalada Beledweyne ayna maxkamad ka soo muuqan doonaan si wax loogu weydiiyo amarka cid siisay ee la xiriir dilka taliyihii hore ciidanka booliiska Cali Dhuux Mahad Alle oo hogaaminaya guddiga madaxa bannaan ee waara uu magacaabay ee dilka taliye Macu
waxa uu sheegay in hadda rajo wanaagsan ay ka qabaan in ay xaqiiqda banaanka soo dhigaan. sidoo kale waxa uu sheegay inay la kulmeen ehelada taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan marxuum Maxamed Macu Xalane, waxaana sheegeen in isla garteen in maanta Jimco ah aas qaran loo sameeyo. dhinaca kale xeraalaha maxkamadda ciidamada qalabkiisa qaybta 27aad Dhame Maxamed Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay in baaritaankooda ay ku soo qabteen 6 ruux ay ku eedeeyeen dilka taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan. Maxamed waxa uu sheegay in weli ay socoto baaris xubnaha la qabtana dhammaan la horgeey doono cadaaladda, waxaanu sheegay in cadaaladda wax ka weynaysan jirin. qodobada kale ee wararkeena ku jiran waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxa uu la kulmay madaxweynaha Bangiga Afrika kaasoo kala hadlay arrimo badan oo dhaqaalaha ku saabsan. wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa magaalada Mombasa ee dalkaasi Ghana waxa uu kula kulmay madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika ee Ghana Addison. wasiir Beyle ayaa waxa madaxweynaha bangiga waxa uu warbixin kooban uu ka siiyay horumarka Soomaaliya ay dib ugu talaabsanayso dhanka maaliyadda. wasiirka waxa uu bogaadiyay in door muhiim ah ay ka qaadanayaan Afrika marka loo eego hanaanka qaranka iyo waliba deen cafinta Soomaaliya. waxaan ku faraxsanahay in madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika aan kula kulanay dalkaasi Ghana. waxaan ka wada hadalnay waxyaabo badan oo la xiriira fududeynta sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta faraha badan ee caalamku ku leeyahay. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa magaaladaasi ama dalkaasi Ghana kaga qayb galay shirka Bangiga Horumarinta Afrika ee looga hadlayay waxyaabo badan oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya. maamulka koonfur galbeedna waxa ay mar kale sheegeen in aan la aqbali karin in dadka deegaanada koonfur galbeed ka soo jeeda in la iska dilo, waxayna dalbadeen in warcad ay keenaan xubnaha maamulkaasi ee Puntland waa maamulkaasi Galmudug. maamulka koonfur galbeed aad moodo inay aad kaga careysan yihiin dadkii laga dilay ayaa waxa ay sheegeen inay doonayaan cadeymo muuqata inay soo bandhigaan. 2 habeen ka hor waxaa deegaanka la yiraahdo Diinwaarse oo 18 kilomitir dhanka bari kaga xiga magaalada Dhuusamareeb lagu qaarijiyay 4 ruux oo ka shaqeynaya goob lagu xanaaneeyo shinnida, isla markaana waxaa la tilmaamay in halkaasi lagu dilay dad badan oo ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed. xubnaha maamulka koonfur galbeed waxa ay sheegeen in ay doonayaan in maamulka Galmudug ay baaris ku sameeyaan ayna soo bandhigaan dadka halkaasi ka dambeeya dilka. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Ugaas Xasan Nakariir ayaa ugu baaqay maamulka koonfur galbeed in baaris dhab ay ku sameeyaan dadkii ka dambeeyay dilka 4 ruux ee shacabka ah ee deegaanada ka soo jeeda koonfur galbeed halkaasi lagu qaarijiyay. waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin inaysan raali ka ahayn madaxda Galmudug wixii ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb, hase yeeshee ay ka sugayaan jawaab degdeg ah ay ka siiyaan dadka ka dambeeya dilkaas gacantana lagu soo dhigo. dhinaca kale madaxa xukuumadda Galmudug Maxamed Sheekh Shaakir Xasan ayaa sheegaya inay Galmudug ay aad kaga xunta wixii ka dhacay Dhuusamareeb dadkii rayidka ay halkaasi lagu dilay, wuxuuna sheegay in ay baaris ku sameyn doonaan. wadaana daawadayaal intaas ay wararkeena maanta Jimco ahaan kusoo gabagabeynayna. haddii aad daawada ku cusubtahay channelka fadlan subscribe dheh qaybta hoose ee commentigan daawada inagula wadaag aragtidaada. mar walba halkan saaxiibkuna waxaan kugu soo bandhigi doonaa xog walba oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya